barta imaamku uu masaajidka darinta yarta dhiganay oo kooxaha argagixisadu 6 beekam mise 9 beekam ay geliyeen waa inta yar halka shakhsi uu istaagi karo waa masaajidkii loogu talagalay in lagu cibaadeysto oo meesha yar imaamka barta yar imaamka waxa la geliyay 9 beekam wala masaajid ha waraysigay ku jiri doontaa oo faahfaahin doona laakiin argagixisada masaajidka mixraamkiisa uu ka badbaadi waayay inay wax ku qarsadaan miyaa u daahaysa inay gabar yar jireys soo xidhaan may waxba ma xeeriso waxba kama mamnuuc kama aha waxba ma dhowrto oo ma tiraahdo waxana dhiba masaajidka ilaahay iyana shaati shacab bay wadataa deeha gacantayda aniga kaga soo saar halkan maxramka imaamku uu istaago 9 beekam baan ka soo saar ma halkan 9 beekam 9 beekam ba ku jirtay 9 beekam mid walba gaar buu u duubnaa wuxuu ku duubnaa kolka ugu horeysa busta lagu kolka ugu horeysa horta xayd baa la mariyay xayd gaari baa la mariyay kadib busta lagu duubay kadib bacdan ma garanaysaa sharaaciyada ee aqalada lagu dhisto yaa ma garanaysaa yaa lagu duubay tuulo yar buu iska deganaa isla markaana wuxuu yiri tolla ayay heerkoodii iyo jifadoodii bartay degeen yuu tagay markii la talaabaha laga qaadana waxa la heer gooni ah la baabiinaya isla sidan hadda federaalka loogu dacwoonayo yaa loogu dacwoonayay federaalka wasiirada deegaanka ka tirsan kuwana wasiirada ma hadlin hadda oo yar gaabsadeen wasiirada deegaanka ka tirsan yaa waxay lahaayeen reerkanaga waa la baabiinaya heer gariiro la dhaho oo tira yar oo halka degan oo meel barwaaqo soorana degan yaa la rabaa in la baabiyo dhulkii laga qaato saas ay dacwadii waaga hore la gudbinay marka xilliga iyada waxay ka faa'iideysteen waa la qabtay ciidan Malaysia ah hawshan tuu ogaaday oo nin samajaahi uu wato iyo ninkii adigu ku soo duulay nin buu adigu meelaha kaga dilay ninkii qabiil bay madaxa u saareen waxay yiraahdeen raaf gaabano weligana iyo waaqana aan colahay yaa nagu soo duulay dadna naga xidhxidhin ninna naga dilay waa kan way soo laabatay iyadoo sideedii waxa leeyahay heer arab la yiraahdo lagu soo duulay kan dhuxul leeyahay ciidanka tababaraya waa la arkaa kuwan kale ee habeen walba soo galay waa la arkaa kuwa xadka ka soo talaabaya ee leh ilaa iyo caalan soconayna iyo dhagax buur waa la arkaa kuwa laga diiday wax kasto xal ahaay lagu yiri warbal hubkan dhiga haba dhigina xitaa la noqda oo deegaanka uu nooga baxa waa la arkaa hadana waxa la leeyahay carruur baa la xasuuqay shaati qabiil baa loo soo xidhay maxaan ku iraahdaa tolla ayay way yeedhaysaa بسم الله الرحمن الرحيم كل وناكسن كسر دواء برنامج كنا ربكاد القضاء كم وحين نكويجي دونا شلي وحنا دين سو جود بني برنامج عن نكجا هذا إنه يسوي كان شها ويرر كي لبسنا كهر الديان كسومالي ده كسر قاضين كحار جعسد يولي بقى سيدا كلا ويرر كا أما ويرر هذا حقا أما هات نكوه كان ديان كسومالي ده قار كود يولي بقى يكرد عين ديان كسومالي ده هذا بقى وحنا يدين لو دقني باقشة إنه دوان كتجني دول كي أي هراء وصو ويررين كواحد سي جوال كافدير كتر سنة qaybtii koobaad ayaan idin la wadaagnay maantana waxaan jecelahay bal inaan qodobkan ku dul istaagno dhagarihii xilligaasi ay halkaasi ka maleegeen iyo waliba sida ay dadka shacabka u soo dhaxmareen iyo waliba qaabka ay hubka u aasteen ayaan jecelahay inaan idin la wadaagno si gaar ah waxaanu diiradda u saari doonaa goobaha ay hubkaasi ku aaseen oo marnaba aydan malaysan karin oo goobihii cibaadaduna ay ku jiraan waxa ay la jooga saaxiibkay Guuleed Ibrahim Guuleed soo dhaw shalay waxaanu la wadaagnay dadka Soomaaliyeed جرال قفيدة يخرج الفتح وين كور يسنى ماله أي هو كقوة أستاني يقاب كي ديانك مركبوه ريسوس وقلنا لواسنا كور وحنجعلها هنا هالك كسي ودنا جدي جس ومارو البعض البرامج لو ذا نسينا ضدكوا بلان قادنا هذه محل وحي هذا ما سنت نورو سيدا إنه شاقني برنامج كان شلي بقى كل شاقني اسمه مسكح يكسب محذين هول قلادن مرك الله في ريه كان شيء هذا يقاب كاي هول قلك أفولين أيام بن كوحهن برنامجكم ما دام ورئيس أبضنان دونه جتشان كي سركيش عيدا كنا جوا رمي دونان حكتي يسيدا يكتمي مرة وين وقت بدن كله ميو لكن وحنا ربعنا ندير سعره بالميلها سجاي كان كران kooxahan argagixisada ee 2 sano ka hor soo weeraray deegaanka Soomaaliya meel laba kama xishoodaan inay wax ku qarsadaan waxa suuraysataa masaajid loogu talagalay cibaado oo in Ilaahay lagu caabudo loogu talagalay oo kooxaha argagixisadu meeshii mixraamka ahayd ee uu imaamku ku dadka ka tujinayay BKM ku xasaysteen barta imaamku uu masaajidka darinta yarta dhiganay
kooxaha argagixisadu 6 BKM mise 9 BKM ay geliyeen waa inta yar halka shakhsi uu istaagi karo waa masaajidkii loogu talagalay in lagu cibaadeysto وماشي يا إمام barta yar imaamka waxaa la geliyay 9 BKM ولا مساجد ha هو waraysigay ku jiri doontaa oo faahfaahin doona laakiin argagixisada masaajidka mixraamkiisa uu ka badbaadi waayay inay wax ku qarsadaan miyaa u daahaysa inay gabar yar jireys soo xidhaan may waxba ma xeeriso waxba kama mamnuuc kama aha waxba ma dhowrto oo ma tiraahdo waxana dhiba masaajidka ilaahay اللي أنا شات شعبي وضعتها deeha isagoo sheekhi masaajidka imaamka tujinayay ah iyo 9 BKM meeshu dadka ku tujinayay dhigtay wadada islaamka ku layn doono hadda soo shaqaaqa yar ma dhicin soo qaylo tolla ay ma taagna soo meeshii weli la iskuma mari laa xogta aan helayno waxay sheegaysaa in weli ay soo qulqulayaan shabaab qaarra dhar shacab xidhan yihiin qaarra hubkoodiiba wataan oo ka soo gudbay buuraha golis soona maray meel la yiraahdo beer oo 30 kilomitir kaliya u jirta burco halkaana ka soo gudbay waliba taakulayn iyo jitus iyo maxaan ku idhaahdaa la isugu soo daray ordaya galabaash dadkana dad meel kale ka yimid ma waa dad markii hore deegaanadan laga qaaday oo tababar intii la soo siiyay buuraha golis laga soo dajiyay xeebtay ku teedsan yihiin buuraha golis ilaa weligoodba way socdaan cid maamushaayina ma jirto Puntland kama warhaysa Somaliland kama warhaysa intay ka maraan labada maamulba oo Puntland hadda waa tan la rafaasan boqoladan kale ee meesha ku jirta marka meeshan waxba ishagoogan tola ayaduna way garab socon laakiin waxaan leenahay siday kuwii hore u fashilmeen ee u fashilmeen inta waxaan rabaa inaan kugu daro warbaahinta saaka waxaad ka arkaysay baskoolada lagu qabtay wajaale صح waxay taageerayaan oo ay markhaati madoon ka dhigayaan oo ay maxaan ku idhaahdaa xaqiiqo biyo kama dhibcaan ay ka dhigayaan tuhunada ay qabto dawladda iyo laamaha sirdoonka xogta ay dadka la wadaagayaan xagee lagu wadaa baskoolada yaa loo wadaa yaa lagu dilayaa maxaa looga baahan yahay baskoolad maanta jigjiga ninka maanta jigjiga ku nool ama ganacsadaha noqda ama baalka ha noqdee muxuu baskoolad uga baahan yahay وجعل بصورة كسو قلنا دو وحرنا والله قبت ماشي وجعل هذا محل يضرب بصورة دي wajaaladaasaa ugu roon oo meeshii dadku ay wada marayeen laga maarmi waaye ah in taayarta la soo geliyo qiyaaso meesha aysan laama boolisba joogin ciidan deegaan joogin ciidan maxaan ku idhaahdaa federaal joogin ee obinka ah ilaa iyo xeebta aad ka gasho obinta maxaa yaala waxaan u malay in suugag laga soo saari doono maalinka dambe وهاجك أنت أنا سوق بجوين قلب كم واحد جعلها بالوهرين إن هذه اللي وداقنو مساجد كاسان كور رمى إنه يعني بالكور بوقنا يقاب كدقرت اللي يقوم مليجي شعب كصوماليات الدجاجات أسكسوغن يجودهم بدجاج كصومالي ده ودرماسين ويسان إن مساجد جودي اللي هو صهوب أنت سي عدد كيسو ده هاي مركب لان اللي وداقنو جنرال جفيدو كور رمى قاب كي هو كاسو وصل حصار المساجد كاسي waxaynu soo gaarnay tuulada bula waa halkii saldhigga u ahayd ninkii hogaaminayay kooxdii argagixisada ahayd ama mid ka mid ah saraakiishii hogaaminaysay kooxdii argagixisada ahayd ee 2 sano ka hor soo weeraray deegaanka Soomaalida halkan ayaa saldhig u ahayd masaajidkan iga dambeeya sida ay xogta inagu siin doonaan saraakiisha ina hagaysa ama safarka inagu wehelisa waxay sheegeen in hub fara badan laga soo bixiyay bal waxa sawirataa ninka deegaankan barwaaqada ah ee nabadda ahaa ee greenka ah ee janno yar oo kale ah ku noolaa laakiin masaajidka iga dambeeyay mixraamkiisaas 9 BKM ku soo xareystay si uu dab u galiyo dadkiisa aan idinku wareejiya saaxiibkay Nuur iyo jananka guud iyo waraysiga ku saabsan dhacdadaas kale warbixinta saan ku kala qaadanaynay meeshan waxa la yiraahdaa bulaaba la yiraahdaa degmada Ceelkarri qabale yar oo ka tirsan oo centerka badaw hoos yimaada weeyaan dhanka bari way magaalada Ceelkarri kaga eedan tahay qorrax ka soo bax 2022 meelihii hubka ugu faraha badan ka soo saaray weeyaan masaajidkan imika aad aragtaan caawiyaha la dhigay xilliga iyada caawiya ma ayna oolin hub aad fara badan ka soo saaray masaajidka dhexdiisa hubka asama ka soo saaray gacantayda aniga kaga soo saaray halkan maxramka imaamku uu istaago 9 BKM baan ka soo saaray محل كذا سجال بكم 9 BKM ba ku jirtay 9 BKM
mid walba gaar buu u duubnaa wuxuu ku duubnaa kolka ugu horeysa busta lagu kolka ugu horeysa horta xaydh baa la mariyay xaydh gaadhi baa la mariyay kadib busta lagu duubay kadib bacdan ma garanaysaa sharciyada ee aqalada lagu dhisto yaa ma garanaysaa yaa lagu duubay 9 koow way isgarab yaaleen 9 bay ka imaan halka ka soo saaray iyo 21 silsiladood tiirkan oo ma garanaysaa tiirka imaamka dhabarkiisa ku eedana barta aad aragto iminka dee way aaseen 25 akay baan ka soo saar halkan 25 akay baan intan ka soo saar intan ka soo saar iyagana sidaan baa ma garanaysaa bay u duuduubnaa halka wiilashu ay taagan yihiin oo haweenku meesha ku tukanayaan maxaa loo dhisay masaajidkan ma in lagu cibaadaysto mise hawlo kale ayaa lagu qabanayay wuxuu leeyahay suurad masaajid balse waxaa gudihiisa ka socday ma ahayn cibaadadii looga bartay ee in ilaahay lagu caabudo ahayd waxaa lagu kaydinayay hubkii loogu talagalay in lagu dhibaateeyo dadka deegaanka ee nabadda jecel sheekh maxamed wuxuu ahaa matoorkii dhaqaajinayay hawshan waxaana qaybta labaad idinku dulgeyn doonaa hoygii uu deganaa iyo howlaha baaxadda leh ee argagixisnimo ee uu halkaasi ka waday ma rumaysan doontid dabinada uu sheekhaasi maleegayay iyo sida uu ugu heelanaa inuu daadiyo dhiigga dadka Soomaaliyeed bilow haddaan masaajidka inta kaga tagno meelaha kale inuu booqano isla maalintaasi waxaa ka mid ahaa gurigii uu deganaa ninka meesha wax ku aasay maxaan kala kulannay gurigaas isaga laftirkiisa u fara badan yaa ku kaysanaa marka gurigiisina uu dhex dhigtay iyo carruurtii masaajidkii ku tukanaya uu dhex dhigtay masaajidkii meeshuu imaamka ahaana uu dhex dhigtay waxaa wehelisa inuu markii dambe ciidamo ku tababarayayba meesha xeero military oo tababar buu ka dhigayba waa tabta dhuxuleeyda hadda meeshan dadka ku laysa xero dhuxul bay iska dhigayaan inay guranayaan iyo geeda waxaana u socdaa traininka ciidamada waxaana tababaraya ku-xigeenkii iskaafkii ina godanaa tababaraya oo la yaqaano oo la garanayo oo intuu maqnaa iyo intuu hadda deegaanka joogay baa la garanayo haddana waa shacab sheekadii uun waxba kuma dooriso sheekh maxamed oo howlgal lagu dilay 2 sanadood ka hor oo ku fashilmay duulaankii uu ku soo qaaday deegaanka garwadeenna u ahaa kooxaha argagixisada al-shabaab wuxuu iska dhigayay shacab wuxuu iska dhigayay imaam masaajid isla markaana tuulo yar buu iska deganaa isla markaana wuxuu yidhi tolla ayay heerkoodii iyo jifadoodii bartay degeen yuu tegey markii la yidhi tallaabaha laga qaadana waxaa la yidhi heer gooni ah la baabi'inaya isla sidan hadda federaalka loogu dacwoonayo yaa loogu dacwoonayay federaalka wasiirro deegaanka ka tirsan kuwana wasiirro ma hadlin hadde oo yar gaabsadeen wasiirro deegaanka ka tirsan yaa waxay lahaayeen reerkanaga waa la baabi'inaya heer gariiro la dhaho oo tira yar oo halkaa degan oo meel barwaaqo soorana degan yaa la rabaa in la baabiyo dhulkii laga qaato saasay ahayd dacwadii waaga hore la gudbinay hadda at the same time waa kan way soo laabatay iyadoo sideedii waxa leeyahay heer arab la yiraahdo lagu soo duulay kan dhuxuleeyda ciidanka tababaraya waa la arkaa kuwan kale ee habeen walba soo galaya waa la arkaa kuwa xadka ka soo tallaabaya ee leh ilaa iyo caalan soconayna iyo dhagax buur waa la arkaa kuwa laga diiday wax kasta oo xal ahaay lagu yiri warbal hubkan dhiga haba dhigina xitaa la noqda oo deegaanka uu nooga baxa waa la arkaa hadana waxa la leeyahay carruur baa la xasuuqay shaati qabiil baa loo soo xidhay maxaan ku yiraahdaa tollaayay way yeeraysaa wuxuu waa sheeko aan horay u soo daawanay waana naqaanaa sida loo daawado ee loo gabagabeeyo aad buu maasan yahay waa hagaag waxaan ku soo gabagabeynaynaa waxaan booqanay maalintaasi gurigii uu deganaa ninkaas odayga ah ee ciidamadu ay dileen markii dambe isla markaasina hubka halkaas ku aasanayay ciidankana ku tababarayay bal iyadana nala daawada sheekada gurigiisa aqalkan waa aqalku Sheekh Maxamed uu deganaa ciidankana halkan ku tababari jiray nin Zakariya la yiraahdo oo raxweyn u dhashay gobolka Bokool u dhashay yaa ma garanaysaa macallin yaa u qaabilsanaa halkan waxaan ka soo saaray guriga gudihiisa 3 baakaamiyo 7 akay baan ka soo saaray 3 baakaamiyo 7 akay waa halka muskaana waxaan ka soo saaray 40,000 xabada halka muska 40,000 xabo gali gorodadii ma garanaysaa ku jira ciidankana intii Soomaaliya lagu soo tababaray la keenayay hubkana Soomaaliya laga soo rarayay halkana qaar baa ciidanka ma garanaysaa lagu tababari jiray dhulkan dee dhul ma garanaysaa ee maadaama uu yahay anteenaduna ay ku yartahay imika badan oo kale anteena ma laha halkan laakiin anteena yar danaan ah bay leedahay
marka maadaama anteenada ku yartahay kolkaana aanan filaynin ba anagu dee gudaha waddanka maadaama xadkii ciidamadu ay joogeen gudaha waddanka inta cadow la soo geliyay in wax lagu tababaray maadaama aanan filayn adu waxay jaanisyo fara badan bay ka faa'iideysteen isbeddelka guud ee Itoobiya ka dhacayna iyadana way ka faa'iideysteen oo maadaama isbeddel guud uu ka dhacaytaana way ka faa'iideysteen xorriyatul qowlka laftiisa ka faa'iideysteen xilligii Cabdi Ilay waddanka waa haystay 2006 taariikhda Itoobiya yay ma garanaysaa yaa la asaasay hawshan todobaanigii 2013 ilaa kolkii dhan kale liya 2006 marka xilliga iyada waxay ka faa'iideysteen waa la qabtay ciidan maleeshiya ah hawshan tu ogaaday oo nin samajaahi uu wato iyo ninkii adigu ku soo duulay nin buu adigu meelahan kaga dilay ninkii qabiil bay madaxa u saareen waxay yidhahdeen reer afgaabana weligana iyo waaqana aan colahay yaa nagu soo duulay dadna naga xidhxidhinina naga dilay wiilkaas laakiin waxbuu fahansanaa qabiil ma uuna ka duulaynin tiimkaasi waxbuu fahansanaa oo ciidanka meeshta lagu tababaraya howlaan xog bay hayeen hawshan isbeddelkii uun ma ayna bilaaban waxay bilaabatay 2006 xilliga Cabdi bilaabay marka waa sidaas weeyaan وهاجاك جود هم بيتاسان جعل لنا كسوق بجبنا قضب كان أنت إنه قضب بدحي هدير بقدر كل ما دورنا سداسي ونبتقليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.